تناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى عز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد قريها بربر كوضي حلوش فاشلك محللك لغوه قوبي كمسألة أهم أولا أيها الأحبة قريبو محا هذا يقول لوغا هدلا guriga maxaa looga xanuunsadaa burburkiisa guriga maxaa la isu weydiiyaa maxaa u fiican guriga maxaa loogu dadaalaa awalan qofku haddii uu fahmo ujeedka ka dambeeya ee had iyo goor guriga loo leeyahay way sahlan tahay markaa in la xalliyo ama dhibkiisa laga hortago. awalan guriga ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku daray min aayaadka in rabbinimadiisa jiritaankiisa waxdaaniyadiisa awoodiisa qudradiisa in lagu garto aayad ka mida buu rabbi ku tilmaamay caza wajal ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وحكى الله سبحانه وتعالى وكتل مامي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يعني إله سبحانه وتعالى وكتل مامي قريبوا إنو يهي ماشا لغو حصلو قفكو وكو حصلو بلشدو يكو حصشو أولادو يكو حصشو إن الله لي أنت خير جعليكو حصلان burburkiisana in allaaliya intii shar jecel baa ku xasisha oo ku faraxda oo rabta oo isla markaana haddii alkuusan ogol yahay jecel inuu sidaa u burburo. si aan waxoogaa isula yara fahamno waaqica iyo wadciga aan ku noolnahay xanuunka badan iyo dhibaatada haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ee soo qaxday haysatay ee ku habsatay ayaan waxaan jeclaystay bal inaan yaro tilmaamo sababaha guryuhu ay u burburaan iyo guriga burburkiisu ma inagoo keliya buu nagu gaar yahay haddii uusan nagu gaar ahayn maxaa sababay inaan ka tira badnaano bulshooyinka kale oo guryahanagu ay noqdaan kuwa si sahlan ay u burburaan cid walba ay weerar ku tahay oo weerarkoodu uu iska sahlan yahay lana aqbalayo cid ilaaliya ciddii maaragtay tilmaam bixisaana lagu raacayo haddii gurigii uu burburaana wax isa sii weydiinaya aysan jirin carruurtii ay dhinac gaara u baylahayaan hooyadii ay dhinac gaara u walwalsan tahay odaygiina uu kasii qaadayo inuu sii fogaaday waxa la midka. saa darteed waxaan yaro doorbiday inta badan shaydaanku dadkii intuu u yimaado wuxuu yidhaahdaa waxaan islaamkaa sidaa yeelay muslimiintaa sidaa ah wadaadadu waa dad dhagax ah waa dad adag iyaga unbaa maaragtay balaayada arka cidda kale waxba ma arkaan. waxaan yaro doorbiday marka bal in aan luqada dalkan aan joogno iyo bulshadan aan la noolnahay iyo meesha ay guryuhu ka marayaan xaggooda inaan horta marka hore ku bilaabo. saa darteed lawxada waxaa ku yaalla wada arkaysaan Ministry for Police Stealing waxa la yidhahdaan ka soo qaaday statistics-ka aan keeni doono ka hadli doono waa wasaaradda sinaanta wasaaradda dumarka iyo ragga sinta ma ku guulaystaan inay ragga iyo dumarkii simaan oo raggii iyo dumarkii nolol wanaagsan ma dhex dhigaan haddii ay simeen ma gaareen ujeedadii ay lahaayeen oo ahayd in nabad iyo wanaag lagu wada caysho mise cagsigeeday noqotay si macnihii aanay u noqonin wadaadadu iyagaa waxu sheegayaal ah. waxaan yaro jeclaystay inaan bal maaragtay ka bilaabo dadka u arka in islaamku uu markii uu yidhi ragga iyo dumarka ha la kala sooco markii islaamku uu yidhi ragga iyo dumarka darajadooda ha la kala garto markii islaamku yidhi ragga iyo dumarka qof walba hawshiisa ha loo daayo ku tilmaamay inuu islaamku yahay mutakhallif sababkiisuna uu keenay inay guryuhu ku burburaan
haweenku ay ku baylahaan ay ku rafaadaan dulmi iyo cadaalad darro ay ku noolaadaan had iyo goor arrinkaasi ma saxda mise maahin ayaan waxaan yala jeclaystay in xaggan aan u leexino iyagu waxay ka yidhaahdeen liannahu mararka qaar inuu cadowgaagu kuu qiro meeshii ay xalka moodeen inay ku hungoobeen ama ay ku rafaadeen waxay keenaysaa qofku inuu diintiisa kusii adkaado oo uu dareemo inay tahay xalka saxda ah ee lagu xallin karo mashaakilaadka qofka bini aadamka la soo gudboonaanaya inta uu nool yahay haddii nuqdada labaad aan u gudubno lee stealing dabcan waad garanaysaan uma baahna inaan sharax badan kasii bixiyo yani ereyga ayaa kuu sheegayaba wuxuu yahay inuu ay ka buuxda khiyaano iyo hagardaamo iyo lugooyo ay rabaan ninkii derbiga dhisayay inuu diyaarad kiciyo kii diyaaradda kicinayayna inuu dameer kaxeeyo kii haddii alla kuusama ogolyahay macnihii waxaan tusaalayaasha u qaadanayn ma raba inaan maanta oo dhan idhaahdo ninkii inuu sidaa noqdo naagtii inay sidaa noqoto maxaa yeelay lee stealing meel walba haddii la geliyo waxay noqonaysaa markaa inuu de meel walba aan la aadno intii yarayda hadda haddaan wax yar khadka ka bixiyo gabadha hadda ra-iisul wasaaradda noqotay maalinkii ay ifafaalaheedu uu soo baxay inta brofessor ee ka hadashay ee odhanaysa waa gabadhii koowaad ee dalka denmark ra-iisul wasaare u noqota macnaheedu maxay tahay lee stealingka ma 2011 ku bilowday gabadha deenishka maxay ra-iisul wasaare u noqon weyday hadda ka hor in la isweydiiyo way mudan tahay liannahu lee stealingku hadda ma bilaabanin waxaan lee stealingka la yidhaahdo ujeedkiisu inuu yahay in guryaha lagu burburiyo ayaan rabaa inaan idiina dareensiiyo aanay ahayn xigmad looga jeedo ee sida ay tilmaamayaan ee ah in gabadhii wax ka maqan loo keeno si ay ninkii ula simanto ama ula tartanto taa markii ay ku daaleen oo ay fashilmeenna maanta waxaan maqlaynaa inay soo baxeen wax la yidhaahdo ururada u dagaalamo xuquuqda ragga maxaa yeelay mar walba dumarkunbaa la sheegaa norway bay ka bilaabatay hadda urur cusub oo bilowday ururka u dagaalamo xuquuqda ragga talow xaqa ka maqan ee loo raadin doona muxuu raggii gaale iyo la weydiiyey islaam rag ka mid oo la waraystay oo la yidhi xaqa ragga oo loo dagaalamaa ka waran wallahi wuxuu yidhi nin ragga in xaqiisa loo dagaalamo ceeb bay buu tahay waa nin gaala wey in nin ragga xaq loo raadiyo leda xaq baa kaa maqan anigu ceeb baan u arkaa buy maxaa yeelay qofku markii uu yahay naaqis uu yahay oo dacfi uu yahay oo uu isu arkay inuu dullaysan yahay ku qancaa in la yidhahdo xaq baa kaa maqan laakiin markuu qofku og yahay khalfiyaadkiisa oo xaq ka maqanna uusan jirin qof isku kalsoonna uu yahay in mid maskiin oo daciifa u yimaado yidhahdo waxbaan kuu raadinaya ma ogolaanayo mana u yeelayo sidaa darteed haddii walaalka uu nuqdada safxadda labaad u rogo waxaa halkan ku yaalla waxay ka hadlaysaa statistickan gabdhaha yani reeraha dagaalama dagaalku uu ka dhex dhaco ee dowladda ay soo gaarto qayladoodu ay soo gaarto inta aanay qayladu soo gaarin meel iska dhiga halkan wuxuu leeyahay tirada la soo xiriirtay meesha la yidhahdo burinta iskoorsada ama gargaarka deg deg ama skeestuuha meesha la yidhaahdo ee dumar ah ee ula soo xiriiray in lagu yani durduriyey oo la dulmaray darteed haddaad ka bilowdan 95 ilaa 2003 soo qaaday intii kan waa isaga soo tegay maxaa yeelay bima fiihi kifaaya intaasaa ku filan haddaad fiirisaan 15 jir ilaa 19 jir dumarka inta vol iyo dil loo geystay waxaan ka hadlayna waa 95 96 97 weli islaam ma soo gelin ogaada yani tira islaam oo la tilmaamo oo la yidhaahdo islaam baa gabdhihii dulmiyey ama ku durduriyey ama ku gardarooday weli ma soo gelin saa ula socda 15 jir ilaa 19 jir 95,538 dumar ah baa la xiriiray iskeedistuuwaha dhib iyo dil loo geystay darteeda haddii aan ka gudubno tirooyinka faraha badan 70 jirka fiiri marka gabadha 70 jirka ah islaamta 70 jirka ah 96 yani haween oo 70kii kor u dhaaftay ayaa iskeedistuuwaha la soo xiriirtay dil loo geystay darteeda ka gudub oo waxaad u boodaa tirada xagga ugu maaragtay dambayso 2003 15 jirkii ilaa 19 jirkii imise isu dallacday 858 qof oo dumara baa 2003 jir dil loo geystay waxaan ka hadlayna waa Denmark meel kale ha aadina al-shabaabna maahin Sacuudi Arabiyana maahin usoo daadeg markaa tirada 70 jirka 101 haweenay 70 kor dhaaftay ayaa jirdilka loo geystay waa 2003
ilaa 95 inta u dhaxaysa. Lee Sterlingkii wax ma bedelay haddii la yiri waa la siman yahay mise waa sii kordhiyay dabcan sida ka muuqata tirada sanadaha markaad dhex marto waa uu sii kordhiyay maxaa yeelay haddii nin indhala uu ku yiraahdo hoggaanka aan kuu qabta aniga i daba soco dabcan meesha uu ku dhaco baad kula dhacaysaa. haddaan u gudubno nuqdada labaad waxaa ku taalla tirada haweenka dil loo geystay u dhintay 90kii laga bilaabo ilaa 2001 da'da 15 jir ilaa 19 jir 90kii 3 gabdhood ba si loo dilay u dhintay dilkii loo geystay 60 jir 3 haweeney aba u dhintay sidii loo dilay. tirooyinka u dhintay volka ama dilka loo geysto qofka dumarka ah labadaas ee muddo inta u dhaxaysa 90kii ilaa 2001 sidaasay isu badbadalaysa inay sii badato mooyaane kamaan yaraanaynin marka isu geynta hoose aad fiirisaan. haddii aan u gudubno inta haween ah ee u soo cararay xaafadaha ee gabdhuhu markii ay guriga ku nagaan waayaan ama ninkoodu uu dilo ama ay la noolaan kari waayaan tirooyin bay iyaguna ka sameeyaan iyagoo weliba u kala saaraya kuwa Deenishka iyo kuwan Deenishka ahayn si cadaaladu u sinaato. 2005 statistics la sameeyay wuxuu qorayaa 14 jir ilaa 24 da'da hablaha u dhaxaysa inta Deenishka ah ee ka aaday guryaha haweenka soo cararay 34 bay gaarayaan. 25 jir ilaa 34 jirna 1061 haweeney oo Danish ah u cararay guryaha haweenka marka la dilo gurigooda ka carara ay tagaan. 35 jir ilaa 44 jir haweenka gurigii ninkoodii ka cararay dil loo geystay ay u cararay meelaha macnaheedu haweenku ay ku haydaan 1220 buu gaaraya. 45 ilaa 54 648 55 ilaa 64 312 qof 65 wixii ka sareeya 114 qof waa Danish waxaan ka hadlayno. dadka aanan soo diiwaan gelinin markay ka hadlayeen ee aanan magacooda register garaynin 1576 haweeney ah baa dil gurigeedii uga carartay oo u aaday meelaha haweenku ay galaan. inta aanan la soo sheegin ee aanan dawladda soo gaarin tiradooda marka la isu geeyo ee macnihii ay diiday in yani oblus ninkan lagu daro 917 haweeney ay noqdeen isu geyn marka la isu geeyo 1536 qof ilaa 917 qof kor waxay u dhaafayaan 3000 qof bay kor u dhaafayaan. waa sanadkii 2005 oo kaliya diiwaangelintii la sameeyay. idan dadka iyaga ama islaam bay isku dhaqayeen soo Lee Sterlingkii mayna qaadanin soo lama oranin wiilkii iyo gabadhii waa markaysa way siman yihiin gurigii hal la wada dhiso gabaray adiguna suufaha keen wiilkana ha keeno qiyuulki adiguna joodarigii keen wiilkana ha keeno go'ay lagu daboolay adigu qaadooyinka keen wiilkana fargooteeda ha keeno adigu sida Lee Sterling soo sida ma hin la rabay maxaa sababay inay ka cararaan marka guryahoodii maxaa sababay inay maxaa la oran jiray ay noloshoodii ku degi waayaan ayagoo wax walba haysta oo gabadhii xorriyadii loogu yeeray ay gaartay. ninkiisa maxaa sababay maadaama uu ogolaaday Lee Sterlingka inuu sax yahay inuu qoftan haweenta ah u soo hooyatay uu ku tuntaamo uu ku doodiyo iyadoo weliba la qaybsanaysa noloshii guriga iyo culayskii guriga iyo wixii oo dhan la qaybsanaysa. halka waxaad dareemi karaysaa marka walaalayaal in durbaan aan sax ahayn ummadii loo garaacay gaaliga islaamba si dad gaara dan ay leeyihiin ay uga gaaraan oo ay ka mid tahay kow in shaqooyin laga helo oo dadkaasi guryahooda ka soo cararaan. markay gabadhu gurigeeda ka cararto inta qof ee shaqo helaysa ku sheegaya waa kow social qodgi oo qof la yiraahdo oo gabadhaasi la taliya shaqo helaya. waa labo caruurtii iyo in lagula kaxeeyo qofka kugula kaxeynaya contact person shaqo helaya. waa saddex waraaqahaagii qofkii sii gudbinayay qofkii soo saxiixayay shaqo helaya. waa afar booliskii arrinkaaga ilaalinayay labadii boolis ee soo socday shaqo helaya. guriga aad u xaroonayso lacagtii lagu bixinayay qolyaha jooga ee ka ah maxaa la oran jiray ansaadka ka iyaguna shaqay ku helayaan. dawladdu marka ay Lee Sterling ka hadlayso
waxay kaliya oo fiirisay inay intaasoo qof ay shaqo u hesho oo kaliya. inta waxaa zaa'id ka sii ah mustaqbalka fog shaqada laga leeyahay ee laga rabo la rabo in qofka kan asaga iyo ubadkiisii la kala yaaciyo, kadibna hay-addii caafimaadka ay soo dhex gasho, kaniiniyo lagu qoro, dhakhtarkii inuu reseptigii qoro, dawada qolyihii bixinayay iyo suusiikhinbabiiskii inuu laftirkiisii uu xoogaa kaa goosto, adigoo aadan ogeyn baad waxaa tahay warshad u socota qolyihii keensatay liya stiilinka. intaasoo idin markii la isu gegeeyo walaalayaal waqtiga oo iska celiiriya darteeda rag iyo dumarku inay isqabsadaan ama in dagaal ka dhexeeyo ama in had iyo goor la isqaniino shay cusub ma ah, shay hadda ummadda kusoo dariyeyna ma ah. waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga u dhex dhigay guryaha dadka isqabaa inay isugu yimaadaan wanaag iskuna kala tagaan wanaag. haddaanay sida ahayn rabbulcaalamiin qur-aan uma soo dejiyaan uu leeyahay haddii aad isqabsataan fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan, in wanaag la isku haysto ama in wanaag lagu kala tago. haddaan la isqabanaynin ilaah maba soo dejiyeen aayaadka noocaasi oo kale ah. rasuulka sal alla alay wasalam akthar min waaqica loogu yimid gabdho uga soo sheegtay raggoodii uga soo sheegtay, kuwaasoo gabdhaha garaaca, haweenka garaaca. nebigu sal lla ly slam mimbarkuu fuulay uu yidhi kuwa haweenkooda garaacaya khiyaar ma aha buu nebigu alay isalaatu wasalaam. waxaa laga sheegaa nebiga sal ly slam markay ka sheekaynayaan siiradiisa, haweenkiisa ay ka sheekaynayaan siirada nebig alay slam ee dhaqankiisa, weligii gacan uu leeyahay bani aadam iyo noole uma qaadin bay leeyihin nebiga sal lla ly slam. sida asagoo aba ilahi wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana. halkaa marka waxaa raggii ninka ahaa laga doonayo inuu rasuulkii ku daydaa laga doonayo, inuu ma arkaysa ay gacantiisa edbiyaa laga doonayo. waa la isqabanaya, waa la isqaniinaya, waa la ismaan dhaafayaa, hadalku waa fogaanaya. rasuulka sal ly slam gabadhii u timid suuratu lmujaadala waad garanaysaa, suuratu qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka. gabadhaasi taariikhda marka ay ka hadlayso khawla bintu taclaba waxay leedahay aniga iyo ninkaygaa doodnay bay leedahay, hadalkii baa naga taagtaagmay, ninkii baa xanaaqo wuxuu yidhi hooyadayo kalaad iga tahay, macnihii xaaraan baad iga tahay, khalaas gurigi waa burburay. doodii markaa maxay keentay? waxyaabaha guryaha burburiye markaan gaarnaan ka tilmaami doona in gurigaasi uu qarka u istaago amaba u noqdayba inuu burburo haddii aanu ilaahay qur-aan soo dejin lahayn xalliya arrinka isaga. maxaa yeelay dhaqanka wuxuu ka mid ahaa labada qof hadday heerka isla gaaraan oo ninka uu yidhaahdo hooyadayood kala tahay waan xaaraan baad iga tahay, in labadaa qof la kala dareeriyo ay sidaa ku furan tahay gabadhii. laakiin khawla radi allahu canha waxay ahayd khawla bintu taclaba gabar caqli badan oo daki ah bay ahayd, gabar u arkaysay hadalkan la wada hadlay inaanu sabab u ahayn gurigii inuu burburo bay ahayd. wayse sii daysay oo rasuulka u tagtay sala allahu alay wasalam, sida kuwo fara badan oo khayr jecel oo gabdhaha muslimaadka ah markuu gurigu burbur qarka u istaaga iyo culummada iyo ula xiriira dadka akhyaarta ah iyo dadka naasixiinta ah ee aanan san taagin, ee aanan ku faanin in gurigu uu burburo ama la yidhahda haddii uu furo ma ilya oof baa maqan. nacam, ilya oof baa ku maqan, weliba lug baa ku go-an. soo arki maysid. nabiga sal ly slam bay u timid ayadoo baryootamayso oo leh yaa rasuul allah ciyaalkii kama dhex bixi karo way lumaya, asagii laftigiisii xanaan uu baahaya bay tiri haddii aan ka tago uu baaba-aya uu baylahaya. ninkay jeceshahay soo ma ceeb bay agteena ka tahay inay gabadhu sheegato jacaylka ay ninkeedii carruurta dhalay u qabto oo ay tirahdo sheekhow ninkan kama tegi karo waan jeclahay, ceeb bay agteeda ka tahay. habaxa bay leedahay hallumaa duro inkaan allah ku ride. halkaasay taaganta. rasuulka sal ly slam bay hoos fadhiisatay, yaa rasuulallah carruurtii baa lumaysa, yaa rasuulallah isagii baa baylahaya, yaa rasuulallahi seen yeela. markaasuu rasuulku leeyahay ma haya wax daliil ah ilaa inaad ka furan tahay ma ogi. halkaasay yani niqaashaya. xataa caaisha radi allahu canha waxay leedahay gabadha akhlaaqdeeda iyo maaragtay say u eedarsanayd gabadha iyada aniga oo guriga la fadhiya waxa ay rasuulka u sheegaysa ma maqlinin bay leedahay. midda inaga naga midaan mar allaaliya markii reerku isqabto warkeeda oo dhan ilaa australia iyo america iyo latin america iyo juqraafiya o dhan buu ku qoray soo ma. hadduu wax yar bakeria uu tuuro haddii alla kuusama ogolyahay suuquu yaalla warka isaga daily newsku ku qoray. yani gabadha iyada caaisha waxay leedahay iyadoo rasuulka iyo iyaduba ay ag fadhiyaan waxa ay ku wada hadlayaan ma aan maqal bayt iyo waxay gabadhu ka sheeganayso ilaa jibriil uu soo degay oo rasuulku ku dul akhriyay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir.
إلهي بقى مقلي فوق 7 سماوات كمقلي عائشة وقولك الله فردنا ما يسن مقلي نعم هدين يدو صادق تهي وقفك وحا ودوني أي رونك تهي وإنه قرق بدبادية أي رونك تهي رب العالمين ومقلي حرب ونسود الجنية وشكل أمويا قبل أيضا رسولك وسود دعوتي وحكو حالي مقلي دون كذلك عمر رضي الله عنه انتو أميرك أها سيداسا قبلوه وسود دعوون جدا قبلو إني مركا يدعوون يسو شيء الصحة إيه الضبط إيه حقيقة هي كدعوون يسو يعرف كل فتاة عيب ما قبل النبي مركا أوتيمد أمير المؤمنين عمر أوتيمد وحي الله هي قبل أسو من كيبو يصوم النهار ويقوم الليل هبين كينا وتكنيا وهبين ودن وتاغنيا صبحين وسومي عمر رضي الله عنه وحي نعم الرجل ننفي عن باقو الله هو بركة نن خير بدن باقو قد على الله هو بركة هاي اللي ورح الماهي ما نفضلنا نيكا وسومي هبين كي ودن وتاغنيا لكن ماشي وجدد كل جرتا waxa way odaygan waxaan ka rabi kama helin xikmada ay gabadhu rabtay inuu dhaadhaco nin raggi kamid ah Umar Agfadiya wuxuu leeyahay ya amir al-mu'minin gabadhu sida kama wado ee gabadhu waxay ka wadaan ninku waa ihmaaliyay inay gabadha muslimada ay ninkeeda tiraahdo saacada la joogo ku baahan ama niyo bariyahan hawshaadi caadi ma ahina waad maaragtay careless baad iga noqotay xagga nagu waa ceeb weeyaan sidee la rabaa marka in diintii iyo gurigi sidee la rabaa inuu ku dhaqmo hadaan gabadhi raqbadeedii ninka u sheegan karin ninkiina hadaan raqbadiisi gabadhiisa u sheegan karin xaaskiisa u sheegan karin sidee la rabaa marka inuu gurigaasi ku taagnaado ama ku dhisnaado gabadha iyada ah kama xishoonaysa inay amiir muuminiin u timaado oo ay uga sheegato inaanu ninkii hawshiisa sariirta ka soo bixin ayadoo isticmaalaysa dariiqo wanaagsan oo aan ahayn dariiqada qaabka daran ee kuwa maanta ilbaxnimada isku sheegaya ee maanta ku faanaya inay carabka ku dhawaajiyaan waxaasi waa saas waxana waa saas sidaas la yeelay sida heerka maanta aan marayno inay dumarka qaar ku faanayaan inay leeyihiin gabadhayda waan uga sheekeeyaa waxa maanta ariga iyo aabaheed aanu sameeyno subhanallah ilbaxnimo ma hinta waa fusqi iyo cisyaan iyo edab darro weeyaan laakiin qofka inaad tarbiyeyso oo akhlaaq barto oo mas'uuliyad u sheegto duruq far badan loo marayo jirta qolyihiin maray dariiqa aan tilmaamayna hadda ay gabdhahaasi ku faanayaan waa kuwa halkaas aan soo tilmaamnay xaaladda iyo meesha ay galeen iyo meesha ay ku dambeeyaan Umar radiyallahu anhu markii uu ninkii saxaabiga meesha fadhiyay uu ku yiri yaa amir muuminiin sida aad wax u fahamtay gabadha uma wada ee gabadhu waa dacwo markaas uu yiri adiga fahmay soo kala xalli marka anu ma fahmin orada soo kala xalli adaa fahmay wax kala hayste uu kala xallin doona waan u tagi doonaa sidoo kale mararka qaar gabadha waxa laga yaabaa inay istusiso in laga gardaray aabna ma ahan wax jiray oo soo dhacay weeyaan Umar baa u imaanaysa haweeney waxay leedahay iyadoo ninkeedii ka sheeganaysa amiirul muuminiin ninkeygii dib buu ugu hayaa wuu ihmaaliyay waxba ima taro waxba ima qabto waligii khayr kuma arag hadda waa nin ay isku soo gaboobeen oo ay da isla gaaraan nin saxaabi ugu marka inay gabadhu timaado ahyaan oo shaytaanku u akhriyo yani inay laga gardaraya oo ay garteedii soo ridato oo ay ninkii meel isaga soo xirto oo waliba ay u kaashato gabdhaha maxaa yeelay raggu waa rag weeyo ragay la jiraan sida ay gabdho far badan aaminsan yihiin marka inay gabdho la kaashato oo jaantiisa la gooyo oo raadkiisa la daba galo si ay xaqiisa u soo dhacsato shaytaanku waa laga yaabaa inuu mararka qaar arrinka kugu caday laakiin waxaad u baahan tahay marka nin sidii Umar oo kale uu inta ku qaata madaxa kaaga jibay si aqligaaga uu kugu soo noqdo sida gabadha iyada lagu sameeyo waa u tagi doonaa iyadana hadhow hadhiina wadaadkii gabdhaha la dilo yiri halka marka walaalayaal hadaan yara tilmaamahaas ka gudbo in isqabsashadu ay tahay shay la mafarra minhu oo aan marnaba suurtagal ahayn gurigu inuu nabad ku noolaado shaytaan baa meesha jooga gurigi waa burburaya qarku uu istaagay inuu burburo wuu siganaya laakiin waxa loo baahay inuu qofka muslimka aayaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa u dhigo inuu isweydiiyo haddii wax sidii ay ahaayeen rabtay iska bedelaan maxaa soo kordhay inuu yiraahdo xulusha faashilka ah ama xalalka khariban ee aan meelna lagu gaaraynin ee aan dhowr ka mid ah tirin doonana inaanu qofku biyo ka doonin maxaa yeelay lalanteedka waxa la soo garanaysaa ama daan dabangaalaha
qofka meel baadiya ku safra qorraxduna ay kulushahay markaad meel ka fog aad fiiriso waxaad arkaysaa waxoogaa wax biyo meel yaallaan oo kale qofka ooman marka wuxuu u malaynaya inay meesha biyo yaallaan markaasuu isii daynaya markuu meeshii taga biyaba ma yaallaan oo waa meel caliciirso oo bannaan cidla xuluusha qaarkood ee aan guryaha ku xallino ee aan u aragno in xal uu noqon karo ama ikhyaar ha gasho ama yaysan gelin waa xulul xalal noocaas oo kale weeye kuwaana inuu qofka muslimka wax ka doono looma baahno maxaa ka mid ah inuu qofku la tashado qof aanan gurigiisa dhisaynin soomaalidu mahmaahyo cajiibay leeyihiin laakiin mahmaahyahannagu ma isticmaalno waxay tidhahdaa soomaalidu niman kuu furi doonin yuusan kuu rarin niman kuu furi doonin yuusan kuu rarin maanta hadday dhibaataya reerka ay dhex dhacdo intaasoo kun oo qof baa isku dayaysa inay arrintoodii xallin galaan laakiin markii dhibaatadii saxda ay timaado oo reerkii ay kala burburto oy gabadhii maciin u baahato tii shalay lahaydna wuu kugu tumanayaaye yani ciilku maxaa soddon guursataa ku nool ka roon silac ku nool soo ma lidhi silac ku nool soddon guursataa dhaanta soo ma lidhaa yani kan iska fur mid kala guurso kanna fur mid kala guurso kadibna dhowr iyo toban kala jaan ay sukeen hadhowna dhowr iyo toban maxkamadood kala tag marka leannu aabbo walba carruurtiisii buu rabaa rafaadkaasoo dhan marka tii shalay kuu qoysay lagama yaabo inay kula qabato ay ku tiraahdo maanta anaa sii haynaya bal olol odaygaa kale carruurtaada ka soo dhacso kuwan anaa sii haynaya maya walaali anna isbaqoogii baa isugaaya maya xaloo dhan baan cajiin qasaayay maya sidan baan ahaa walaali ma soo kici karo anay rabtaa inay ugu shaqaysato waa tii shalay kulahayd ninkan waa kugu tumanaya daaqadda ka tug idan marka inaad la tashato qof aanan kuu furi doonin berrito oo aan mashkilada kula qaybsan doonin waxay keeni kartaa in aadan markaa musiibo aadan ka bixin aada ku dhammaato inuu qofku isku qanciyo wax qanac oo aanan sax ahayn taana waxaan ka wadaa mararka qaar baa guriga inuu kala tago u qayb badan lan ilaah baa subxaana wa tacaala yani ilahi wuxuu leh subxana wa tacaala haddii aad arrinkii marka uu dhaco ay arrintu furitaan ay tagto yani haddii aada khayr uu meeshii yaallana ilaah subxaana wa tacaala waa isku kii soo celin haddii aan meeshaa khayr ka sugnaynna inaad kala tagtaan dembi kuma lihidin faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan faidaa balagna ajalahunna faamsikuhunna bimacruuf aw faarikuhunna bimacruuf yani in wanaag lagu joogo iyo in wanaag lagu kala tago waxay leedahay gabar nabigu u timid sala allahu alay wasalam ma arkaysa uu kusoo degay masaa'ilka khuluca ka hadlaya iyada lagu bineeyo nabiga u timid waxay leedahay yaa rasuul allah maantaan markuu wadaadkaygii sii baxayan daaqadda ka sifiiriyey bay leedahay asagoo sii socda baan daaqadda ka eegay wuxuu la socday rag bay isla sii socdeen wixii meesha maraya asagaa ugu gaabna asagaa ugu madooba asagaa ugu labis xumaa asagaa ugu qaabdarnaabay tiri qalbigii muraayadii baa jabtay bay tiri dib dambe ulama noolaan karo nin foolxun weeyaan yani mushkilad ma leh qofka inuu wuxuu dareemayo shucuurka saxda uu banaanka soo dhigo ceeb may ah laakiin inaad maanta oo dhan aada isku qanciso wax aan jirin soo garanaysid oo dhibaatadii aadan yani isha farta ka gelinin aadna ciddaad u warantaa wuxuu kugu jawaabayaa dhibaato aan isha farta laga gelin jawaabteeda ku siinaya nabiga sal slam saasaa buu yidhi ha umad iska haysatid khayri baraka ku jirta guriga maya waxay tii rasuul allah waxaan diidayaa in aan ku dhaco kufraanulcashiir wax la yidhahdo inaan ninkayga dembi ka muto maxaa yeelay anoon jacayl u helin inaan la noolaado ceeb bay ugu tahy marka qalbigii waa jabay khalaas waxba uguma jiraan bay tii waa iga soo dhammaatay nabiga ala slam waa u yeeray oo kaali buu yidhi ninkii wadaadu saanay leedahay maxaad u aragtaa yaa rasuulallah de xor wey xaq bay leedahay way dhihi kartaa way nici kartaa mushkilad ma leh asna ma balanbalin oma dhin wallahi ma furaayo sida ragga qaar laga hayo sidii inuu gabadha gatay oo kale kolley cajalada waxaan umayn ragga gaari doontaan u malayn in ninku inuu gabadhii gatay oo kale waxaad moodaa haddii la war gabadhi way soo taagan tahay ee fur may buu leey wallahi cid iga xoqi kartaa ma jirto yaa furi kara carar waa ninkii ku dhaca oo furaa gabadha iyada waa lagaa furi maan weliba sankaa lagaa daloolin ha leannu ilaahi subxaanahu wa tacaala xaqa in ma arkaysa loo gargaaro waa shay waajib ku ah ummadda ku aweya nebigu sal slam wuxuu yidhi wiilkii gabadhani kuma rabtee maxaa xalood haysaa wuxuu yidhi waan furayaaye xoolahayga ha isiiso mahar baa iga baxay layn waxaan uruurinaya ilan iyadan ku bixiyey tu kala ku raadsanay ha isiiyo samid xoolahayga ha ii soo celiso haya arrinkaas raalli ma ku tahay raalli ma ku ah beertiisiiba beer uu lahaabay uu ka qaadatay mahar uga qaadatay beertii bay u celisay sidii bay gabadhii ugu furan waxaan ka wadaa marka
inaadan isku qancinin wax aanan hagaagaynin nin aad salaadii kula daalanta oo aad cibaadadii kula rafaadayso oo aad maxaa la dhihi jiray carruurtii aan tarbiyadii kugula haynin inaad markaysaa ay la sii taagnaad hadhownahay odhanina nimankiibuu nagu diray laakiin waxa saxda xaqaan idiin sheegaya shaygu waxa weeye qofka muslimka ah guri aanu maslaxad ku arkin inuu kusii dhex noolaado oo mas'alada qaabka daran aan isku xallino aan isku qancinno ee aan leenahay maxaa la odhan jiray guriga hooyooyinka ay gabdhaha kula dardaarmaan ilin suxulkaaga ka da-da carruur lagu korsadaa sax maa qalad weeyaan gabadhu waa in xaqeeda ay hesho ninkuna waa inuu xaqiisa helo haddii la rabo guriga inuu nabad ku noolaado awlaad saalixana ay gurigaasi ka soo baxdo waa in dadku aanay maldihin oo tahdiya khaati ah yani dadaboolid inaan la samaynine ninkuna wuxuu ku khaldan yahay farta laga saaro gabadhuna waxay ku khaldan tahay farta laga saaro si awlaadii ay nabad iyo wanaag ugu cayshto la wada hadlo oo xaqiiqada banaanka la keeno sida aan qodobada qaar ka mid aan keeni doono waxyaabaha xulusha faashilka ee dadku u arkaan xal u arkaan in mararka qaar gabadha ay tidhaahdo waan nafisaya waan hadlaya ninkii inta halka ay soo fariisiso amaba odayaal ay u keento ay tidhaahdo sim jim maalintii laysa soo guursaday 1900 eberkii ilaa maalinka maanta la joogo 2011 inay gabadhii soo qaado wax alla wixii uu maray hadduu geel lagday hadduu guriga ka booday hadduu caano daadiyey hadduu si khaldan u qoslay hadduu si khaldan u labistay wixii oo dhan intay soo qorto shijaarka noocaas ama dooda noocaasi ah iyaduna waa xal faashila wey maxaa yeelay waxaan arkaynaa mar kasta oo nooca loo wada hadlo in laga sii faa'iido in lasii kala fogaado in laga sii faa'iido in cuqdad lasii kala qaado in laga sii faa'iido in su-aalo kale oo fara badani ay dhashaan sidaa darteed qofka muslimka ah marka uu rabo inuu xal gaaro waxay yidhaahdaan yani dikru ljafa bacda safa jafa jazaaka allah khayr sheekh abdallah dikru ljafa bacda safa jafa yani in markii la heshiiyo kadib lasoo qaado wixii lagu dagaalamay horay loogu dagaalamay weli lama heshiinin wey markaad marka 1900 eberkii kasoo bilowdo oo laga yaabo in intii dhexe oo dhan dhowr goor la wada hadlay oo dhowr goor wax la xaliyey aad laakiin weli wixii ku dheganta macnaheedu waxa weeye weli raalli ma aadan noqonin idan maxaad ula nooshahay marka ninkan aan raalliga u ahayn saa darteed waxaa laga maarmaana marka qofku hadduu rabo inuu tahdiya shaamila uu sameeyo oo uu dego inuu sameeyo waxa uu ka hadlayo inay noqdaan wax saxa u tilmaamo ujeedka uu leeyahay uu gaariyana ay tahay inuu rabo inuu sulxi gaaro in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma baa alla leeyahay subxaana wa tacaala hadday labada qof markay wada hadlayaan ay wanaag doonayaan ilaahay wuxuu waafajinaya wanaaggii saxda uu waafajinaya laakiin haddaad usoo fadhiisata ka waran maanta ninkii baan aan la doodsanahay hiblaayo qaxwo noo soo kari inaad ku qaxwo cabtaad doortaado xal uma jeedin asagii inuu wuxuu rabaa gabadhii khuduuciyo oo uu dulmi iyo gardarro uu wato uu mariyo oo koox buu soo kaxaysanaya wuxuu leeyahay maanta xaafadii ma aragti qayilka xaafadii weeye xaafadda isugu kaaya keena islaantii baa niyoo kari lahay ila hadla halkaasuu marka keenaya niman afmishaaro oo tuug ah markaasaa gabadhii maanta o dhan waxaa leinaada de khayr allah ku siiyay saas maahine saasaa reerka lagu dhaqi jiray dee ninka maaragtay saa ka daa dulumkii oo dhan oo ninkan uu lahaa in isna markaa loo jidmariyo gabadhiina halkaa intay iska oyso ay tidhaahda maxaan sameeya ciyaalkii kama dhex bixi kara halka noocaasi kale waa hal faashil ah weeyaan waan u tegi doonaa waxyaabaha nabigu calay salatu wasalaam naagta iyo ninkaasi qad samicalla kusoo degtay uu ku xalliyey waxaan kaloo u tegi doonaa cumar radi allahu canhu labada gabdhood ee usoo dacwooday wuxuu ku xalliyey laakiin si yaroo sariica aan dulmar waxyaabaha walaalayaal guryaha burburinaya oo haddaan laga hadlin oon la taabaninna ay noqon karto inuuna ay tahay sheeko la iska sii daayo aan meel lagu wadin awalan waxa weeyaan oo asalkan u ah oo guri walbaana haddii ragga iyo dumarka isqaba ay ka fakaraan ay saxaan ay ku dadaalaanna ay ku gaari karaan horumar waxa weeyaan in macaasida laga fogaado reerku inuu macaasida ka fogaado macaasida ugu yar waa maxay in aan lays adeecin hooyadu haddaysan aabbihii adeecin xaaskii haddaanay ninkeedii adeecin iyaduna ha sugto gabadheedii wiilkeedu inaysan adeecaynin in la is adeeco wanaagga la isku adeeco khayrka la isku maqlo ilaahi subxaana wa tacaala waxaa lagu gaaraa darajaad uu bixiyo xalay baan gabdhaha yaryar halkan kala hadlay u sheegayay haweenay aabbaheed uu dhintay
oo walaalkeed u yimid oo yiri aabaha baa dhintay waa la xabaalaya ee kaale oo markaasay arag aabaha intaan la xabaalin markaasay waxay tiri wadaadkaygu iima ogolaanin inaan baxo wali marka idan inaan ka qaato albaabka kama degayo waa gabar mutakhallifadu 1900 eberkii nooshe lama socoto qarnigan caalamka ma isaga kule nin way gurigu leeyahay furaad haysta furu haysta eeshi iska baxo waad soo noqon halkan bad gaari dhow waxa ma dhiba aabaad soo arki ya annaguna inay gabadhaas inay soo aragto odayga godka lagu ridaayo ayay maaragtay tireen odaygii baan sugaya wadaadkii baan sugayaa bay tii annaguna waxa la arkay hadii maanta lagu soo waco meel aan aqaano laga soo waco dadan magaalo sheego qol hadii annagu noo jeeda meel aan ogahay hadii laga soo waco oo la yiraahdo hooya sidan oo hooya meel ka dhacdo lug baa ka jabtay tigid uusan wadaadkii ogeyn iyo baleen uusan ogeyn iyo diyaarad hadhow wadaadkii maan shaqo hooya away hooya ayaa jabtay oo diyaarad bay tigid way raacday diyaarad haday kula qaxay ka war xageed aadi idan illa is ateeco waxa yar iyo waxa weyn la isku ateeco waxay keenaysaa in qulubtu saafi isu noqoto in jacaylku uu kordho maalinka uu ku guursanayay waxa la wuxuu kira wad yeelays laakiin maanta markaad laba u dhashay maxaad la kibirtay to asagu shalay mar allaaliya markuu ku jeclaa gabadh yar ahayd waxaad u sheegtay talooyina uu ogaa uu aqbalay uu raacay maanta markaad laba dhashay maxay isagii ku dhacay waa masaa'ib weynteeda leeyahay at-taa'a fi al-khayr in la isku ateeco wa shayga ugu horeeya aan dhihi karo inuu guriga ka hortagi karo burburkiisa waxa kale oo idin jira waxyaabaha guriga burburkiisa ka hortaga labadii qof waxay isu guursadeen in meeshii la iska qabtiro marka shalay aad gabadha ahayd ku soo doonay aad bad isu qurxinayso Soomaa nuurkaaga dhaxay Soomaa atar iyo isbarfuumin iyo gaal ku samoogaliya wax alla wixii xaraam oo sameynayso Soomaa si uu wadaadku uusan kaaga tagin oo jaaniska uu kaaga lumin hadii maanta la isguursado guri la isugu soo galay atarkii away diricii away hadii alla ku soo hadalkii macaana away يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبأ يمدوه يا رسول الله واحد رواينا جبر بندون رواينا نقول صدق كاسة في المدينة وحقا قبله هذا وحلو وحنتا إني من جماهيريين يعني كوب كودين ودوبين هذا وحنتا رجل يكون نوالا كلا راعي مرجع سووا كنا عشان ما يسكفيري سجوانا في المدينة كوب دوبنا بلوي قلنا مسكفيري سه مرجع يا رسول الله ما فيرين ها يعني ما كان الشيخ أبو طلع ولا يضير يرانا ولا بشيء ولا غير المدينة مركا يعني وجدت كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري إن أدسكفي رسقفكو إنه أركو قفك وجورسنايا وحي كردسا إلا بدأ سقف جعلك وكرده قولي ولادك كوجوس وقالي درعي عجين كلها ما شاء الله ما يسوي إنه كجعل هذا وضربته صح ما أسقي هل كانوا وحول جالس فريسنا معويس جحجاحا إنه مركز الجعلاطن والرباصي يعني سحمه يعني منظر كقفك وكوكو أركا مهمة وإن يالطا هدي قول لي سوي ما دوية هدي مال لو ذا جوجا هدي الكوسة وقول لي هاي قولك خاص كأن لو ذا جوجا لبض قفي إني منظر قفك كلا سوجي ذي ولي ما دو وشيء لقوا مارمانوية ابن عباس رضي الله عنه هذا جعله أيوه اللي هذا مركز تو قريجة إيمانيو أيوه استاجا وعضيدا عضيب ودجاها مارتي الكها مرمريا شلوا قاتوا شلوا يستوي لكل مجري كذب والباب فراوي السلام عليكم ورحمة الله أرضي إنكم بدها الله يعوي إمامكم مر والبماشي ما تصاص السماية مالك الدم يا إمام سيروح قوة داوي قولي جالس حاجة وش الله سنة ولا البادية ماشي على السوق الحين ماشي على السوق الحين ما بيجي قال لك هذا إمامك كبرنا يلك ما كان ابن عباس وحيري ورميت كانوا قالوا مستمر يقول ما كان قولي قالوا قبل يوم كشكش له قروح بدون عارفة سنة يقصها بحض هاوي هذا يدور السيد وكل يسوي يسوي أنا قروح بدون ما شوفته أنا طريحي إيو وحي كسر شكايي إيو رفعت كي بوستي مجالة إيو جعجعي تنتي إيو أدمود الشيطان قرقة صوقله إن أنا بقول مرة تقولي قبل وحيرة ما كان قالوا إني ما كان يقصوا ورضوا عرف أيدرنتو أذوق أيدرنتو وراحة أيدرنتو صدقت البانوان إنك جيبوا لي سؤال كبير يعني ابن عباس رضي الله عنه كتر بينا نكاسو waxa uu xaaskiisa ka sugayo in iyaduna ay ka sugayso ninkeeda ay ka sugayso sababteed mandarku waa muhiim in loo labisto guriga marka la joogo in guriga la kala hagaajiyo hadii guriga wadaadka markuu yimaadaba aad aragto bambar meel yaalo oo arkay koobkii xalay qaxwada lagu cabay wali misku saaray rumoodkii guriga meel laga raadiyay baa la garanayay
haddii aan ku sameeyo iskaashadii ilmaha markay soo galeen albaabka ay uga soo tageen qaarkood jaakadihii miiska wax lagu cuni lahaa saaran yihiin qalimaantii iyo bugaagtiisi kursigii lagu fariisan lahaa yeelan oo haddii lagu fariisto qofkii ay mudayaan ayadoo dhan meel uu ninkiiba lug dhigaba uusan garanayn 24 saac halkaa aad fadhiday teliyo aad dhegta haysatay caasha xagee martay khadiija xagee aaday xaliimo intay maraysaa guriga inuu saa u baylahsan sidee ku rabtaa marka inuu ninkaa guriga dhaqso u yimaado ma imaanayo wuu soo dahdaahaya si asaga oo daalay markuu yimaado hore uu gal meesha jeefka ahay haddii sarartii gogolan tahay wey أكيد مركب واحد نيك أسوي إنه فكر بالله بدونه أبو يارو هذا ميت كلام بورسة تملقي يا بيني واحد هيجي الله هل كقولي يا ما بربور مثل ما بربور نعم ما بربور أصلا أنا سيدو كالعكس يجيس كمان ما تقدر قولي هيجي جنس أو بدأت كأساس عضلة أو فوح شديسة وهذا القصة بقول يا سعدي وصورنا ومركب أردت واحد كلا نظام الناس أو ذات لندن بوكا قيل يا أبو وما بيجي شيء جينا معلش خير اصبر واصبر مالك هذا الشيطان اعوذ بالله من الشيطان غوري هاغا جيس سماه حاجه روايه laga dhigay Copenhagen jira wadaadada ku soo haray dadka wax laga sheegay waa qasab weey hadu waadii doonta hadu wadaadadu maartay la jira mo si uu loogu maartay wadaadii ay soo diyaarinayso uu sugayso oo baan hadu wadaadii saddex imaanay sheekhay ku maray shir baa jiray gudiga dacwada fadhiyo xogaa warkii baa lagu dheeraaday soma si ay soo diyaarinayso islaam bariyahan wadaadku waa mashquulsanaa oo 10 iyo waxbuu dhigayo uu rafaadsan yahay bal weekend dhiga ilaahay xaaladda hagaajin doona jumcada iyo sabti iyo xadda odansan mutamar ku qoran gabadha laftirkeedii خلاص qalbiga jabayadan wax dambe ay hagaajin doonto iyo mal idan marka in mas'alada la xalliyo haddii aan ku sameeyay yahay la ilaaliyo mandarka guriga la ilaaliyo lagu ilaaliyo qalbi furan lagu ilaaliyo la isugu yimaado ma arkaysaa sidii guriga gacan looga wada geysan lahaa waxaan ku darayaa qaabka wax loo xalliyo ku darayaa xalku walaalayaal hadda dad walaalo oo is haysta aad dhex gashaan awal horta cabsida ilaahay la xusuusiyo dadka is haystaana si niyada oo khaalis ah qof walba inuu iska soo qaado isaga inuu yahay qofkan maanta mushkiladu ay haysato xal marka waxaad gaari kartaa saliim oo saxiix ah u fiirso النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كان تميدا تلماني المجادلة إلهي وكما عاضي خولة بنت ثعلبة خولة بنت مالك بن أصرم ابن فهر بن ثعلبة وغير مكة وحي لا هي نبي ما كان من الأرض وشيء أنا ولي بأويه النبي عليه الصلاة والسلام واحد جواب ويسيم الحقيقة مسألة الديني أول ما أهم وحي إلتها هي يعني صانو أركي يقولوا من تهي مجرته وإنه النص كان النبي عليه الصلاة والسلام بالبعض عي ninkii waa dhaartay gabadhii inuu furay ku dhawada marka nabiga calaysha salaam waa aamusay asagoo laftigiisa la murugaysan Aisha waxay leedahay guriga waxaad moodaa murugada ku dagtay kaanahu inuu mawt yaalo oo kale geeri inay timid oo kale wa ficlan wasaawi maxay yeelay guri haduu burburo geeri weeyaan waa mawt iyo dhimasho weeyaan soo arkimaysid lidaalka waxay leedahay Aisha radhiyallahu anha rasuulku sida madaxa u hogtay ayuu markaliya madaxa kor u qaaday asagoo qoslaya markaas wuxuu yiri ayna almujaadila أو تدوريسي مركز توايك الرسول الله رسولك بالله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وفي ساعة أنت سوصل كل الآخرين قضية بالله ياري وحلي قبلنا دارك سوى عشت يعني نكي كبر تأوير هذا حاس كيبو وهو يدي أوكله وحي نقول سهدور ربعين وحاس يستضيب دم بوسي واتو إن أمر شروط النوعان قول ظلم الجور بانتقال شبه يعني وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وهذا الظلم أبو إله سبحانه وتعالى
in heerka gabadhii aad gaarsiiso ayadoo weli waxay samayn jireen oo sababka keenay dihaarka waxa weeye islaamtu markay waayeelowdo oo caruurtii ay dhamayso waxba ay dib u dhali weydo ayaa ninku wuxuu leeyahay hooyada ka dhigata si uu mid yar kale u raadsado sidaas marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri sax maahan qofta yani dihaarka nooca sameeyo waa inuu sida uga toobad keeno way hadii uu rabo inuu maaragtay si xaasaysto maxaa lagu xukumay ninkii warka uu ku dhacay cadaaladda rabbi fiiri meesha yani gabadhani hadii aan ku samoogol yahay gurigii bay rabtaa inuu dhisnaado laakiin ninka raba inuu wax burburiyo ee dagaalamay waa ninkii way Ilaahay wuxuu yiri fa awalan waxa weeyaan fa tahriiru raqaba adoon waa inuu xoreeyo bal waxa looga bilaabay meesha ugu sareysa qof bani aadam adoon inuu ta soo iibiyo oo gado si uu san mar dambe waxa kale ugu dhicin maanta laba kelimad baa la isdhaafsanaya waa ku furay hadhow sheekhu way maanay oo sheekhu gabadhii hadaynan ku noqdaan rabaay rajactu malay gabadhii baa lala hadlay oo la waanin oo la wacdin oo la yeelo khayr insha Allah waa sabraya gabadhii sida aad ogay tarafaad loogu soo maray hadana waa imaanaya wuxuu leeyahay laba eray hadii la isdhaafo caanihi baad soo ilowday waa furanta sheekhu gabadhii hadana waa fur warinkaan adu mar walba ma ka saaray waa furanta gabadhii marka sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshu gaarsiiyay fiir marka يعني مررك قار حلوش اللي جاري يراه لسوء علني وحهابون نك ساعة بود يمر بوفرنتها كوهاي إن وذا يراني وقبل لجوم علني إلا ضغط توبت كان تو من صح النقطة صحيحة كان لكن ما قام مديه كرا ما في قبل لفت كذا ديارتها ده لفت كذا كل شيء إلا سوء علي وذا تيرا وتباب كلام إلى سبحانه وتعالى فوق بالله فتحرير الرقبة هدي وسنهلي كان فصيام شهرين متتابعين وفيرس يعني لباب بلاد أو حريرة إنه صامو لحدا المرموضة حريرة أما سداد يكونت المرموضة حريرة سيدا بيش يجري يقول هذا إنه صام هل مالين هدو فرو صاب بالله ما سهل لما قولي إلا بربريو سهل اللي سقع عرفه أو اللي سقع أرض ماهي قفك مركا وحلنا يا إنه درنسيو لبدا دوني سيني قولي بربريان إني سنهين شاكا قحوة اللي قعبو أو واحد عروس إني يجي سياس النبي عليه الصلاة والسلام قبل يقول هي سيدايين كذلك عمر رضي الله عنه قبل أن شاقني يدرس فهم سيسي وحن جرين نينك هذه كدع وطيئة تري إما ونجيو إما يلو إما سيو نينك أقواكم وكوين مركز وحي كتري أبو سلمة على النهار يتري نينك عمر وقفت مركز أبو سلمة مركز وحي سبحان الله من خير بدن وناك بدن وددال بدن ويمحال عاد يا مركب ما هم يا ها ولا يقوان نوي وين الرجوي بلاي الله يقول وهوليه اللي يقاني بالله بالرجي هذا ربا قبر كلينو راسدو ربا هذا سانو يير ربا هذا كان مي عمر وحي سبحان الله وهو نين خير بدن وناك بدن كو اوغاي عمر waa u yeeray kaali buu yirniki markaas wuxuu waraade gabadhu waxay sheeganaysaa marun baa buu oo macnaheedu inaad ihmaalisay oo aadan waxba u tarin sida aad naasaso markaas wuxuu ku jawaabo yiri ya amir al-mu'minin hay ugu degdegin إلهي بنقول دارتي وحي كم تهيب ويري قبلها مدينة دجن كو أقول نعمة الله بكم تهيب حول ما هيستبوا يري إلا حولها سويه النعمة وكجارب ضر الآن ما هيستوى الله عن الورقو جلابي رفاهية ماشي قدام بيسين وين هيستاوي لكن علة عمره ما قرن يساوي نرجسوه ولكن بعلها بكي يعني من كذي أضيق النقطة ما ترى النقطة حاجة سريرته كذا قبل هالكاس كذا قال له مسافر الأمور وندى وضيع يعني هو شو دليل هذا مركوها وقبل هذا ما قبل كم وحلاقي دور قر فوقا كبر بيضيع ويراوش الديار منه أنت سيجواد أي دعوة كذا مرجع عمر رضي الله عنه مسمي اللي ماشي حال كلام يعمل عمر نبي كان دليل نبكم معلن كرو سؤال كنيسة كذب بقول أقاتل وحولي جواد أنتوا يا وكالة مرجع سؤال أنتوا قاتل الله بك جرّبت عمر رضي الله عنه سكفت المقولين أنا هذا إذا ما ضايع هلا قلعه قبلها يرجع يدتك يسايستا تعرف هذا ما حبس هذا مجلين لكن عمر رضي الله عنه قلب وقاته جواد وكذا سوق هذا وب ما بكون دفتي وسو كمسي حولا يدون وحارته مكاسيتي نعم صوتنا أنت ربط كمسي مكاسيتي نعم واحد كشيء أنت أسوي شيء سو أنت وما هابيتي مركاسي وكويري أنت لما يستطيع ودق كنكتة إبر كنكتة هذا الذي وكتة والله هذا مرضى كامل سكتب هل كيبو لبي بركودري قبل سؤال كميس هل كان مركا عمر رضي الله عنه قبل أو بري يعني واحد لجور هذه يا واحد جوري مهمة دي سلوك دميو إن أنا سهل هنا إلا جفك رأي مهم أي تعال